waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed wixii hadda galabta halkaan iga fiirsanaya. Waxaan rabaa waxaan maanta halkaan isugu yimid qaar ka mid ah gabdhihii hooyooyinkii madaxdii haweenka oo Soomaaliyeed civil society oo gabdhihii muddadii dambe oo dalku burburka dowladnimadii galay ka shaqaynayeen waan isu yimaadeen inaan markii wax dhacaan wax niraahnaana mas'uuliyaddu aan qaadanay ay tahay. Marka waxaan rabnaa galabta halkaan inaan wixii ra'yigayga ka jeedino. Marka hore waxaan rabaa inaan ku hadlayo magaca gabdhaha inaan ka tacsiyeyno wixii ka dhacay Puntland, caruurihii, haweenkii, dadkii dhintay, intii dhimatana Allah u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay u boogadhayo. Waana ku faraxsanahay sida mas'uuliyadda ku jirto oo loo manage gareeyay dhibkii dhacay. Runtii waa ka mahadcelinaynaa in la manage gareeyay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nabad soo dejiyo meel walba ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ku naalooto meel walba aan joogno. Taa markaan inta uga tago waxaan rabaa inaan arrinta maanta ka taagan xamar aan wixii taladeeda ah aan ka qabno aan ka hadalno. Xamar markaan leeyahay waa Soomaaliya, waa meeshii dalka laga xukumay. Xogaa yare khilaafka ah oo dowladeeda ka dhex dhashay. Runtii waxaan rabaa inaan Ilaahayna u baryo inuu noo dejiyo, annaguna wixii aan ka dhihi lahayn aan ka niraahno. Mar haddii la shaqaynayo waa la isku hor imaanayaa oo dad shaqaynaya waxa weeye waxbaa la isku qabanayaa saanay tahay iyo saanay tahay. Waa nolosha socotaa sida ah. Waxaan rabnaa marka dalka dowladdu markii inta aan loo sameeyno dowladnimadu aysan noo dhismin carte wixii ka horeeyay marxalad buu ku sugnaa. Markii dowladnimadu timidna marxalad buu u bedelmay. Waxaa jooga constitution baa noo yaala, waxaa yaala institutions shaqaynaya. Waxaan dhiganay xeerar iyo nidaamyo aan isku maamulno. Marka waxaan rabnaa horta sharciga iyo kala sarreyntu in maadaama aan muddo la soo daalaa dhacaynay waxay ila tahay waxyaalo badanna waa lala kulmayaa. Marka horta bal inaan qaadano in sharcigu sarreynta sharciga in lagu dhaqmo. Waxaan rabnaa wixii in sida sharcigu yahay la isugu soo laabto. Dib hadduu dhaco sharciga la isugu soo laabtaa. Waxaan intayadan halka fadhida iyo in naga maqanba xog ogaal u nahay markay dowladnimadu burburtay dalkan joognay waxay aan la macaamili karno. Annagu marka shirka jaraa'idda galabta aan qabanayno ayadoon dowlad jirinna waa qaban jirnay, waa hadli jirnay. Hadba xaaladda taagan baana ka hadli jirnay. Waxaana noo diray mas'uuliyaddeeda. Waxaan noo diray mas'uuliyaddeeda inaan dadkeega iyo dalkeega inaan u naxno oo mas'uul naga saaran yahay ay tahay oo meel aan uga gambano aan la arag. Marxalada kala gedisan baan gabdhahan iyo annagu aan shaqooyinka ku soo marnay. Alxamdulillaah maanta dowlad iyo nidaam iyo waxaan haysanaa wixii intii dowladnimadu ay looga baahnaa waa haysanaa. Dowladihii noo timid marka carta markay nooga timid dowladdu ilaa maanta aan taaganahay khilaaf baa ka dhexdhacayay hay'adaha ugu sarreeya dowladaha waana la saxahay wax khilaafka ka socda waa laga gudbahayay. Marka waxaan rabnaa wixii khilaaf ay mid in looga gudbo si nabdoon, si isfaham leh, si is-afgarad leh, si isku dulqaad leh. maxaa yeelay isku meel baa loo socdaa waxa loo adeegayaa waa ummadii Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed marka dhisidda dowladnimada, dhisidda institutionada, dhigidda constitutionka hawl badan baan ka soo marnay. Intaan waxaa la kala ilaalinayay inaan dhibaato iyo khilaaf uusan imaano lagu xalliyo wixii yimaada. Awal nidaam kala jiro dadku qabiil buu kala aaday, hadda waa la isku yimid waxa lagu heshiiyey constitutionkaas in lagu dhaqmo. Aniga waxaan ka mid ahaa markii aan joognay Imbagaati dadkii charterka wax ka soo sameeyay. Waxaanu ilaalinaynay in ay annagoo ka duulayna markaas wixii carta ka dhacay inaan dhib imaan inaan xalkeeda helno sii dhigno. wixii naga dambeeyo constitution ka shaqeeyana waa sii shaqeeyay. Marka arrin meel loo laabto iyo marjac iyo nidaam leh
uma baahna in maxayto buuq kale lagu furee horta meeshii ay u baahnayd ha lala aado constitutionka ha lala aado nidaamka aanu maxayto lagu kala dambeeyo ha loo sameeyo midda kale oon rabo inaan ku darsadaa waxay tahay maanta waxaan taagannahay waxaan u malaynayaa qiyaasta la sameeyey ilaa 4 milyan dad gaarahaya oo Soomaaliyeed ayaa macluul iyo abaare inay maxayto ku dhacaan qarka u saaran dalku doorashana waa uu u socdaa marka waxay ahayd gacanna inaan biyaha ku dhaamino oo dadkii ugu gurmano gacanna aan dalka doorashada ugu aadino taasina waa istiraatiijiyada dowladnimadu ay noo qaadanayso nagu hogaaminayso waxaan rabnaa marka inaan inta wixii khilaafa oo maxayto ka dhex dhaca dadku waa wada shaqaynaya Soomaalidu waxay tiraa carab iyo ilka isugu dhow oo waa isqaniinaan waxba isku dhacaya waxba isku imaanaya laakiin sida ugu nabdoon si dadku loogu adeego bardu waxay ku saabsan electionka iyo doorashooyinka sahra aniga iga badiso oo sharci yaqaan noo ah ayada unba ka hadli doonta laakiin waxaan rabaa inta ay dowladnimadeedu isugu imaanayso tiirka hore laga soo dhiso uu noqonayo qabiil oo 4.5 uu taagnaanayo waxaa noo sahlanaanaysa si maxayto isku dhici waa sahlanaanaya maxaa yeelay waa qabiil baan ku dhisanahay wixii aan nagu u ordayno u loobin gareynayno aan lahayn war qof cod hal la aado war xisaab aan samaysano xisbigu qabiil ma noqonayo wuxuu noqonayaa xisbi lagu midoobay oo dad kala gaar ku midoobeen laakiin halkaan waxay tahay meeshii aan ka jilicsanayn waxaan ka jilicsanahay haddaan Soomaalinahay qabiilku waa ka jilicsanahay aad baan uga jilicsanahay waana meesha nala ka soo galay oo nabarku nooga dhacay nabarkii marka waxaan rabnaa meesha aan ognahay aan ka danqanayna inaan iska ilaalino waxaanu nahay markaan gadaal isugu laabano 4.5 baa loo qaybiyay afar qabiil iyo bar baa la yiraahdaa baa la kala aado laakiin haddaad fiiriso waa isku xiranay wiil iyo gabar abti in adeer habar saasana isku waxa la yiraahdaa isku taal baana isku taal dadaan kala maarmin oo kala tagsaneen oo midab lagu kala garto iyo wax lagu kala socodna aan lahayn baana dad waxaan nahay isla dhashay oo maxay isku unugo Soomaalidu wada isjeceshayo aniga waxaan ogaaday markaan tagnay la cararay oo la tagay Kenya aan tagnay waxaad arkaysaa dadkii ka halkan ka carro qabiil lagu kala eriyay gabdhaha waxa wata la wato gabdhii waa loo soo qabto waa gabdho Soomaaliyeed waa la soo qaban qof alla qofkii ka hor yimaado waa qofka kale taageerayay marka waxaan dhihi lahaa annaga inteeda wax garadka dadka wax garadka huna waa inay dowladnimada una duceeyaan wixii aan u tari karno sidaan maxay dowladnimadu ay hore ugu sii socoto oo qor isku dhiibkeedu uu ku socdo aan ugu shaqeynahay inaan ugu shaqeyno maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin meel qurux badan oo Soomaaliya ay inay hore uga sii socoto ma ahana gadaal uga laabato annaguna u baahnayn Soomaaliyana u baahnayn baan taaganahay ummadaas soo kala hado shaqada soo aada waa qof shaqeeyo iyo qof u shaqeeyo iyo qof la shaqeeyo iyo qof dadku waxay ku xiran yihiin qofku subaxii suuqa inuu yimaado si ilmihii iskool ugu helaan si asagii daawo u helo si reerkii dab u shito waa dad isku qoysaho dabka wada shita marka waxaan dhihi lahaa aanu ka shaqeyno dadka waxgaradka dadka ulul albaabka ilaahay ummadda asagoo abuurtay oo samaystay oo ummadiisa tahay oo muslim ay yihiin wuxuu yiri markuu la hadlayaa ulul albaab baa ilaahay yiri oo aqliga dadka u saaxiibka ah oo uu ku ogyahay markaas inay wax kala reebayaan waxaan rabnaa ulul albaab inuu noo soo hormaro waxaan rabnaa inuu aqligu shaqeeyo waxaan rabnaa Soomaaliya inaan gacanta ku wada qabano meel yar gabar haday naga dhimato waxba naga haray wiil haduu naga dhinto waxba naga haray wiilasheedii tahriibka aadahay waa ka roon waa ka joogsadeen dadkii waa soo noolaana naf baa soo gashay marka aan inta isu nimaadno waxa naga dhiman in aan si wada jir iyo wada tashi iyo isku tanasulid iyo isjacayl ah hadaan la isjeclaan oo aan nagu isjeclaan oo aan dalkayga hadaan jeclaan waxaan aadaynaa dad dalkiisa jecel baan inta marti u noqono baa waxaan lagu sameeynayaa
waxaanan jeclaysan baan la kulmaynaa. qax waa soo aragnay, dhib waa soo aragnay, kala fogaansho waa soo aragnay, kala tegid waa soo aragnay. marka waxaa kala tegid Soomaalidu waxay tiraahdaa kala tegid kala go'id kala laalaadid baa dhaanta oo ka fiican. marka waxaan leeyahay dadka caqliga Ilaahay siiyey, dadka odayaasha ah, dadka dhaqanka, dadka culumaa udiinka ah, dadka ganacsatada ah, dowladnimada aan gacanta ku qabsano waa is ognahay. haddii dowladnimada la iftiinsanayo haddaan weyno meeshaan u soconno waa is ognahay. waxa noo muuqda ma aha waxaan ka war doonayno, waa waxaan ognahay oo ah waxa kale leeyahay hoos inaan inta u sii degno aanu iska dhigno dagaalku waa hoos buu sii soconaya. aan dowladnimada kor u qaadno, aan sareynta sharciga kor u qaadno, dowladda dadkeeda jeclaado oo sameeya. Chinese-ku waxaan u maleynayaa dhowr boqol milyan bay madaxa gelinayaan, hal madaxweyne iyo hal maamul bay leeyihiin. ma dhahayaan annaga dowlad ballaaran baan nahay, dhowr madaxweyne hana la siiyo. intaasay sugtaan, intaasay ka amar qaataan. dad yar oo wada dhashay oo walaalahan oo isku afa oo isku diin ah oo isku dhaqana oo isku meel yar degan, bacad yar oo alla barakeeyay. meesha aan kor saaranahay waxaa yaal khayraadkii, waxaa yaal barwaaqadii, waa halkaas dad ku abuurato waxaad cunto halkaasaad ka heli kartaa. marka waxaan rabnaa dhallinyarada Soomaaliyeedna inay u istaagaan dalkan waa dalkoodii. wixii bannaan tagana waa soo arkeen waxa yaala. waxa kalena caqli iyo ra'yi bay ka haystaan in aad dalka 13 nin baa u istaagtay in ay xornimada Soomaaliya ay qaataan oo waxa aad dadkan u bartay baran, laakiin qalbigoodu fiicnaaba Ilaahay ku haleeshiyay inay helaan dowladnimada. waa mahadsantiin. Ilaahay waxaan uga baryayaa Soomaaliya nabad waarta oo ay ku naalooto, inuu cirka uga soo rido, inuu uurkooda isku furo, inuu isku taalbaanahay Ilaahay uu kuwii calankooda weligood kor u haya naga dhigo. waa mahadsantiin. wabilaahi tawfiiq.